السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حلقتي هوري daba socotaa oo ah waana part 2 aad ka dhigi karnaa insha Allah taala. sababta aad hore ugu socon lahayd haddii aad dareemaysid inay noloshaada kala daadsan tahay amaba aad marka xoogaa meel gaartid aad arkaysid in marka laba tilaabo hore u qaadid hal tilaabo hadaad dib u noqonaysid ama marka hal tilaabo hore u qaadid laba tilaabo aad dib u noqonaysid haddii aad stuck tahay basically not moving imtixaan baad akhrisan karin waxbarashaadan hore u wadi karin business baad hore u wadi karin shaqaada hore u wadi karin reer iyo guur baad hore u wadi karin maxaa ugu wacan marka what's going on أساسي تنا دلال كوكوما يرى قرشة كوكوما يرى عقل كوكوما يرى حكمة كوكوما يرى what's going on مركل هالكيس كمان هذا تاسع هي اسكو دي كله إن شاء الله تعالى إلهي يوافقيه تكوات أبدا تهي وهو عن إن أن النسبيسد وحيابها أسمينيسد يا أود هذا إيو عقلك هذا يمسكح هذا إيو إن أن النسبيسد قف كله يا connections كاغي dadka kale kugu xeeran bimaana tawakkulkaaga qof kala siisay taasna waxa la yiraahdaa qof kala asiisay ama naftaada ha ahaato ama qof kala ha ahaato taasna waxa waaye xalada waa shirk ama qarxina waa shirk al-asghar baynaha ama shirk al-khafi baynaha shirk al-asghar ama shirk al-khafi ayaa la yiraahdaa ilaahay ayaan kama galayna marar badan khafi waxa loo yiri waxa waa shirkiga yar ama shirkiga qarsoon waxa loo yiri adigoon ka fakaraynin baa waxaa iska aaminaysaa waxaan adigu inaad keensatay waxaa awooddaada ku keensatay caqligaada ku keensatay ya dad badan ayaa waxay dhahayaan ya ay maskaxdeena ku keenay ya dad badan waxaa laga yaabaa inay dhahaan ay aaminaan iska dhaadhacayaan because of connections ka ay haystaan dadka ay yaqaanaan xiriirada ay haystaan ya opportunities ka ay haystaan asbaabta ayay siiyaan tawakkul amaba isku haleeya asbaabtii oo ah waxyaabaha sameynaysid waxyaabaha jirka iyo laxaadku uu sameyn karo laxaadku caqligan uu ku jiraayo uu sameyn karo ay si zaa'id ah isku haleeyaan oo ay ka daba dhacaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah weyn oo awoodoo dhan asaga u saaxiib tahay muxuu marka ku dhahayaa no ilaahay shirki khale wuxuu ilaahay wax kasta uu afiyaa aan shirki ahayn shirkigaas in kastoo san shirkiga weynaa ahayn oo ilaahay tawxiidka aan ula shirkiyeelin ilaah kale haddana awoodii ilaahay ayaa waxa awood bini aadan ama awoodda naftaada ayaa isku haleynaysaa more so than awoodii ilaahay markaas marka wixii hagaagi waayaan waxaa dhahaysaa so what's going on then because bini aadan daciif ah baa tahay oo awoodiisaba ay kooban tahay marka hore marka tawakkulku waxa culimada dhahaan oo kale waxa waaye amal ama cibaado qalbiga waxa sameeyaan dhan insha Allah taala waa cibaado ilaahay waa tuu yiri wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tawakkulku waa cibaado cibaado qalbi ah dhaqdhaqaaqa iyo dadaalkana waa cibaadadii jawaarixda amaba laxaadka caqliga hataa uu ku jiro marka dhaqaaqays marka dadaalaysid marka shaqo raadsanaysid marka waxbarasho ku jirtid marka wax sameynaysid marka dad connections ku sameynaysid marka business ka galaysid waxa soo dhan dadaalkaaga dadaalaysid bimaana tawakkulkaaga laakiin 100% ya qalbiga ah ka qalbiga ah 100% ilaahay uu la jira 100% ilaahay uu la jira so therefore marka haddii ay wax ku hagaagi waayaan wax aad gacmahaaga dadaalkaaga maskaxdaaga caqligaaga waxa ku sameeyay haddii hagaagi waayaan qalbigii ma hoos ma u dhacayo ya ama ma niyad jabaysid bimaana ma niyad jabaysid waayo demo aan isku haleyntaada dhan marka hore ma aan siinin caqligaaga ma aan siinin isku haleyntaada dhan ilaahay baa siisay so therefore ma hungowaysid inaan hungowno marka waxa ugu wacan 99.99 ma dhayaa 200 out of 100 waxa uu wacan isku haleynteena ayaa ilaahay la jirin subhanallah waa kaarita waa masiibo waa runtii isku haleynteena ayaa waxay la jirtaa ya wax kastoo kale laakiin ilaahay lama jirto ilaahay wax kastoo kale isku haleynaa ka bacay inaa isku haleynaa wax kastoo kale isku haleynaa ka bacay inaa isku haleynaa ilaahay inaa waxa waaye mar walba isku haleynaa ilaahay isku haleyntiisa iyo waxyaabaha hawshan aan sameynayno in ay wada jiraan inay si wada jira u shaqeynayaan
laba camal bay kala yihiin ya laba camal oo isgarab socda way wada shaqeynayaan. So tawakkulkii ayaan khalad ka fahnay, tawakkulkii ayaan maye dayacnay, tawakkulkii ayaan dayacnay. saas isku halleynteeni ayaan meel khaldan dhignay. wax walba dhan kala wada waa ilaahay sama. ilaahay ayaa awooda inuu shaqada ku hagaajiyo, ilaahay awooda inuu barashada ku hagaajiyo, ilaahay awooda inuu carruurta ku hagaajiyo, ilaahay awooda inuu guurka ku hagaajiyo, ilaahay awooda inuu caafimaadkaaga ku hagaajiyo. So laakiin haddaad ilowsantahay inaad ilaahaas aad tawakkalatid oo isku haleynaysid dhakhtarka, oo isku haleynaysid quruxdaada iyo caqligaaga iyo dadaalkaaga, oo isku haleynaysid dee waa fashilmanaysaa. yaa maxaa waman yatawakkal cala allah fahuwa xasbuh. qofka ilaahay isku haleeya ilaahay ayaa ku filan, ilaahay ayaa ku filan. bas intaas ku dhamaad. iyo watawakkal cala alxayi alladii laa yamuut, ay laa yamuut wahuwa xayun laa yamuut. asna wuu nool yahay oo ma dhintay, sidoo kalena awoodiisana waa ma dhimato, oo awoodiisana waa xay oo wax walba huwa qaadir calaa kulli shay. dhakhtarka awoodiisa way dhamaanay, adiga awoodaada way dhamaanay, waa jirani ma jirado ma seexdo, mar walbaba diyaar ayuu kuu yahay. waxaa waaye waman yujiibu dacwata mudar idaa dacaa. laba aayadood baa isku khaldayaa. ilaahay subxaana watacaala qof markuu u duceysto uu de qof arrin ku jira u duceysto, yaa u duceeya ilaah ka ahayn duca. pointigaasna waa soo noqon doona insha allah tacaala. talabaad oo ay iskugu hagaagi leedahay wax waaye, talabaad wax kugu hagaagi leedahay waxa waaye dee waxaa tahay qof dambi inaa ilaahay dambi dhaaf weydiistid baa ilooday. waayo waxa waaye haddii aanan mustakfir ahayn haddii aanan mustakfir ahayn oodan dambigaa qiranaynin inaan because ilaahay wuxuu noo abuuray inaan kownkeena calashaan inaan nahay kuwa dambaabayo haddana istiqfaarsanay, ku dambaabayo haddana istiqfaarsanay. laakiin haddana taas aanan qaacidadaas aanan haysanin waxaad kasoo horjeesatay dabiicadii ilaahay subxaana watacaala oo lagu abuuray inaad dambaabtid haddana istiqfaarsatid. haddii aad istiqfaarsanaynin waayo haddii aynan dambaabi lahayn ku bedeli lahaa kuwa intay dambaabaan istiqfaarsado sooma. marka waxaad kasoo horjeed marka istiqfaarta diidid waxaad kasoo ama iloodid ama aad yareysatid ama aad fududaysatid ama istiraadid anuma dambi badnayso oo istiqfaaran laga maro hadaa istiraadid waxaad kasoo horjeesanaysaa dabiicadii ilaahay kuu khalq. waxaad kasoo horjeed istiqfaarta وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفار إنا ويدسني لا غفار ويان غفار عشان غافر كلي غافر ويا ولكن وانا غفار عشان حوالي كان مر والباء ذنب دافك ولا non stop because non stop عند الدابينة. so ما دام لا شك فيه إن الدنبابي سيد عادي كنت سوى كلا سورة النجم. دنبيا واوين كوا كفوق فاح فوحش كوا كفوق هذه دنبيا واوين لكن دنبيا يرمو يعني وهاي الدنبات الدنيا ونقد الدنبات إلى ونقد الدنبات بالفعل والدنبابي شكله وين تاس شيطان أيان لو وصل لذي قريب بان لو سميه markii nabi aadam la abuuray alayhi salaam uu diiday inuu sujuudo oo dalal loo ruuxda ilaahay lagu afuufay nabi aadam oo uu cadawga koowaad shaydaanka noqday muxuu ballan ku qaaday inuu na dambaajiyo sama oo ilaahayna uu siiyay awoodaas. shaydaankana waa cadawgeeni weeyaan oo na luminaya ilaa kuwii ilaahay ka baqay ilmuttaqiin ilaa kuwa ilaahay ka baqay mooye oo kuwa dhaakiriinta ah mooye kuwa mustaqfiriinta ah mooye kuwa ayaa ka badbaadaya shaydaanka ayaa ka badbaadaya. so therefore waa dambaabayna waxaa laga rabaa inaan dikri wadno inaan istighfaar wadno bidaat istighfaar hadda ka hadlayna mawduucina taas istighfaarka inaan marka wadno afka ka qaadin. waayo dambiga iyo dambiyadeena macaasideena macaasi dambiyo aan la imaanayna kuwa loo jeeday kuwa aan loo jeedin kuwa aan ognahay kuwa aanan ogeyn waxaas ayaa waxay u yihiin arsaaqdeena ayay xijaab u yihiin arsaaqdeena maaha cunto kaliya iyo xoolo kaliya waa xikmad iyo caqli waa caruur waa maal waa everything waa adduunyada inuu ilaahay kuu sakhiro waa inuu ilaahay kuu sakhiro inaa ilaahay u cibaadaysatid wax lagu irsaaq ilaahay la weydiisto waxa ugu wanaagsan waxa waa inuu ilaahay na waafajiyo inuu ilaahay nagu irsaaqo in aan u cibaadaysano
سو أصير هالك so إلهي رزقديسة يو كحجابا أما وكقرية وحنا قرية وحنا معاصدين سيس إن إلهي أرزاقنا إنه قرنين وإلهينا إنه قرن أو قلوبتنا أي دب عمد مذو دب وسيني محاول مرك أنا سوينه وإن أنا هل إيه قرار لإيماننا استغفار أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أما أستغفر الله the shortest format أما صيغة أوفض يا نوع أوفض الله ليك أستغفر الله أما رب اغفر لي either way in a non-stop day and night aad samaysid ayaa ku fududeynaysa aan istakadhigaysa waxyaaba aan istakadhigay naga dhigay kamid ah taas waa tii istighfaarta soo hadda tawakkulka haddaan sameyno labo aan istighfaarta badan tawakkulka aan sameynayna waxaa ilaahay tawakkulna nafteena aan tawakkulanin ya qof hebelna aan tawakkulanin buug hebelna aan tawakkulanin diraasa heblayana aan tawakkulanin cilmigii aqoonteena aan tawakkulanin caqligana aan tawakkulanin ya صنعت كبابورت iyo inuu tareenka waqti on time la geenayo ana isku haleynin markuu imaan waayeen aan dhahno wow yeah because tawakkulkeena ilaahay lama jiro qalbigeennana hada tawakkulkan waxa waayaan dhahnay qalbiga 100% ilaahay tala saarta iyo jawaarixda shaqeynaysa jawaarixdana waxa waaye laxaadkeena iyo shaqeynaya laxaadkii aqligu shaqeynaya waan dadaalaya ma fariisanayay saasay tahdana qalbiga ilaahay uu la jiraya hadii markay wixii lacag ay hagaagi waayaan ما هم جواي وأنا هبائن for a good reason إنت سبب ولا أوجي أو طلع على حكمة وأوجي أو طلع عليه أي واحد يجوها جاي واين بالعكس ودي في عند يعني كون أحسن ودي في عند الحمد لله يا الحمد لله because إلهي بابا ونكفر حياة أي واحد هاي واين مرك قلبي وبقولك يبغى ليش because إلهي باسكوها لينيا ويا لسكوها ليا إلهك ووحول بابا هيا التوكل كواتاس طلبات marka waxa istighfaarta فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلهي نوحا كو إلهي حسكيسا بديا وإلهي يجعلها وكفرحيا وكفرجيا وحاواي كوي ذكريسا بديا من ضمن أركان إلهي نوحا استغفارت سيدو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لزم الاستغفار يا من لزم وحاواي علشان جوجتيا النبي عليه الصلاة والسلام لازم الاستغفار لازم أي يعني جوجتية وحو إلهي أصميها ديق كستا أو هيستا وحو غفرة يعني مخرج أيو غفرة ما هو بحصل وح كستا أو هم أو هيولول أو هيستنا وحو أصميها فرج أيو أصميها وكفرج عشان وكفتشيا أساسا بيا مركا sababta horta uu istagno qonaysto waxa waay because tawakkulkaaga ma xadan nagtay dambiyada ana batay marka inaad dambi dhaaf ilaahay weydiisatid number one of the answer of your problems jawaabta ya hada isticmaalaan kan yana hawaye stak waxa u tahay ilaahay waad ku jecel ilaahay rabina u soo noqoto dambi dhaaf weydiisatid ilaahay wuxuu rabaa inaad qof kale isku haleeyo naftaada isku haleeyo xoogaaga isku haleeyo ya aan isku haleeyin connections ka isku haleeyo taas waa tagawad labaad ma istighfaarta tasdaxaadna ugu dambaysiinaya oo aan hadda ilaa hadda waxba ka dhihin waxa waaye ducada iyo taacada iyo ducada waa two in one aan la imaatid taaco iyo duco iswadatina la imaatid taaco yani la imaatid waxa waaye wuxuu uu ku faray ya inaad samaysid wuxuu ku faray inaad samaysid wuxuu ka joojiyayna aad iska daysid bimaana markaas ilaahay baa adeecaysa oo wuxuu ku sameeyay bas say tahay u sameynaysa wuxuu ku yiri iska daana say taas kaga deynaysa ma raadinaysid excuses ma raadinaysid loopholes بالعكس هاسكو دaysaa the safest the safest waxa ka wada loophole waxa ka wada banaan ma raadinaysid qiil ma raadinaysid marmarsiye ma raadinaysid saan haddaan sameeyo ka waran ma raadinaysid saana igu wacan ma dhehaysid duruuftaas ay haysato saas darteed baan u sameeyay waxaas isdhehaysid waxaad isku daysaa sida ugu wanaagsan inaad u samaysid wuxuu ilaahay kuu diray iyo inaad iska daysid wuxuu ilaahay kaa joojiyay adiga oo raadinaynin marmarsiyo kale markaasna aad ducaysatid mar walbana aad ducaysatid inaa ilaahay u ducaysatid idan way aad ducaysatid toon iyo duco inaa mar walba ducaysatid inaa ilaahay u ducaysatid inaa ka ducaysatid
inuu macaasida kaa ilaaliyo kaa hayo, inuu daacadiis kugu saacido, inuu istifaad ku haleeshiiyo, inuu umuuraha ku fududeeyo, inuu caafimaad ku siiyo, inaad qiyaamuleyl u kacdid, inaad ilaah ka bariso salaadida, inaad waqtigeeda ku tagtid, inaad samaysid daacada, inaad ikhlaasi mukhlis inaad ilaah uga dhigtid cibaadooyinkiisa iyo cibaadooyinkaaga iyo acmaashaada, inaad ilaah ka barid intuusan video iga kala go-in baan rabaa inaan 2 kalmood oo kale ka dhaho. waxaan arkaa commentska inaan lagu weydiinayo waswaaska wax kasoo dhaho. insha Allah tacaala video xiga oo isbuucan gudihiisa ah ayaan rabaa inaan kaga 2 kalmood saas ka dhaho. idima muugani waa idin jeedaa, laakiinse waqtiga ayaa iska khayraysan. waxaan rajeynayaa marka insha Allah tacaala inaan week dambe sugsiinin ee weekan gudihiisa ama عشان week axad Soomaali ahaan hadii lagu fakaro sabti week ka bilowdo. إن شاء الله تعالى كسو هذا الدور وحي إلهي إيجا عاديو هدية مركي هدا إلهي تنسارتي استغفار لإماتي دعية طاعة لإماتي you have superpowers إن شاء الله تعالى. قف كلا نمو أباهنيسي بالعكس قف كلا إنا أباهد إسكالافة وحاكو سورة قليسو إن شاء الله تعالى إنو إلهي كو بركيو أو كو بركيو حوقاقا iyo aqligaaga iyo dadkana ku sakhiro because asaga u jeesatay, asaga arrimihiisa dhan u dhiibatay, so you don't know meesha ka irsaaqayo. ومن يتق الله يجعل له مخرجا because waxaan dhan waa ilaahay taqwadiisa sameynaysa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wuxuuna ka irsaaqaa wax ka siiya meel uusan filanaynin uusan ogeyn. irsaaqadan saan dhana waxa cunto kaliya ma aha, waxa wax walba waa caafimaad, waa qaab fikireed, ودجناشو هيبت أو حلوة. محو واي قفك إلهي يستا محو صحيح يستا قفك إلهي واي basically لو هذا إلهي هيستيد you have everything. هدي عن إلهي هيسنينا you don't have anything. ما يو عدلا وكيس كي وينا يو أذو أنا كوكيلنا مورينا دنو كودي بنينا إله وحول بأودو إله السماء تاجيو إله الرب كأرك ككينيو إله نو إرزاقي بلا حسابه ربي ورحمانه وحد نو إرزاق ذا طاعة ذا وحد نو إرزاق ذا عمل خالص المخلص لك إله يقويه إله عاف من نو إرزاق يا ربي ورحمانه عمل كيني أنا نجا بشد نو إرزاق إله جنة الفردوس ربي ورحمانه نو إرزاق آمين يا رب العالمين. فتح في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.